dhawaada tusmo online. 3 shaqo oo la waayi doono ChatGPT darteed. Dhamayso muuqaalkan. Robotyada iyo nidaamyada AI miyay naga qaadi doonaan shaqadeena? Muddo sanado ah ayaanu la isweydiinaynay su'aashan, waxaana lagu howlan yahay dooda ku saabsiisan AI in ay mustaqbalka na siin doonaan shaqooyin ama in ay khalkhal gelin doonaan suuqa shaqada. Marka la eego heerka dhaqaalaha guud ahaan, waxaa cad ilaa hadda robotyada iyo nidaamyada caqliga macmalka ah in aysan buuxin karin baahida shaqada. Haddana robotyada iyo nidaamyada caqliga macmalka ah waxay qaban karaan noocyada shaqooyinka qaar. Waa run in shaqooyinkii ku dabargooy horumarka tiknoolajiyada ay beddelaan shaqooyin kale, laakiin tani macnaheedu maaha in geedi socodka isbeddelku uu yahay mid sahlan. Sababtoo ah dadku guud ahaan uma sahlana inay beddelaan shaqooyinkooda, gaar ahaan haddii shaqooyinka cusub ay meelo kala duwan ka jiraan oo ay u baahan yihiin xirfado cusub. ChatGPT dabayaaqadii sanadkii hore waxa ay kor u qaaday walaaca baahsan oo ku aadan suuqa shaqada, iyada oo ay awood u leedahay in ay qorto nuxurka koodhka iyo in ay samayso wadahadal u qaab eg sida bini'aadamka. Richard Defere, khabiir ku takhasusay caqliga macmalka ah, ahna madaxa injineernimada bulshada ee Ultima, ayaa mar uu la hadlay wargeyska Daily Mail sheegay, waxaan rumaysanahay in ChatGPT ay beddeli karto 2 suuqa shaqada 5 sano gudahood, sababtoo ah waxa aan hadda u jeedno maaha keliya wax cusub sida Bitcoin, NFT ama caqliga macmalka ag, ee waa xaqiiqo aan ku noolnahay, mana jiraan calaamado muujinaya hoos u dhac. Waa kuwan 3 shaqo oo dabargoy doona ama la waayi doono ChatGPT darteed. 1. Barnaamij sameeyaha. Botka ChatGPT wuxuu awoodda u leeyahay inuu curiyo oo uu ogaado oo uu saxo qaladaadka koodka, wuxuuna samayn karaa barnaamijyo fudud oo ku qoran luqado kala duwan. Laakiin haddii aad weydiiso inuu qoro kood adag sida qorista coda geemka heersaraha ah, waxay jawaabteedu noqon doontaa hawshan hadda way ka baxsan tahay awooddayda. Si kastaba ha ahaatee, khubarada qaar ayaa aaminsan in ChatGPT iyo caqliga macmalka ay si degdeg ah u horumarayaan, waxaana laga yaabaa in aan aragno isbeddello waaweyn 3 sano gudahood. 2. Qorayaasha iyo saxafiyiinta. ChatGPT waxa uu awoodda u leeyahay in uu qoro qoraallo dhaadheer, sida maqaallo iyo warbixinno loo qoray si hufan, ilaa ay marayso heer ay qorto buugaag dhan oo hadda lagu iibiyo dukaamada buugaagta ee Amazon. 3. Shaqaalaha adeegga macaamiisha. ChatGPT asal ahaan waa chatbot awood u leh in uu si fudud ula sheekaysto isticmaalayaasha, wuxuuna ka fiicnaaday dhammaan chatbotyada hadda jira. Haddaba, adeegga macaamiishu waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee uu khatarta ku yahay, iyadoo hadda loo isticmaalo in lagu maareeyo weydiimaha macaamiisha, jadwalka ballanta, iyo xalinta mashaakilaadka qaarkood, waxaana laga yaabaa inuu awood u yeesho qabashada howlo badan oo kakan. Tani waxay u horseedi kartaa shaqaale badan oo ka shaqeeya adeegga macaamiisha ah inay waayaan shaqadooda.